السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابضي هدي تمركو غوريسي channelka aad soo booqato dalbile 32 fadlan inoo sar subscribe youtube-ka gambareelkana furo like inoo dheh si dad badan u gaaro channelka waayo waxay noqonaysaa dhiirigelin weyn ayay noqonaysaa. asxaabay ama daabadayaal waxaan soo diyaarinay warbixin aad u qurux badan maadaama dadka ku xiran channelka ay rabaan in loo soo gudbiyo waxyaalo badan oo ka qarsoon halkan loogu soo bandhigo. waa warbixin aad u qurux badan ayaa halkan nagu soo jeedi doonaa. ku soo dhawaada daawadayaal, warbixintan waxaan rajeey doonaa inaad dhamaysan doontaan hadduu eeba yiraahdo. dadka naafada maxay ka aaminsan tahay bulshada Soomaaliyeed? waa warbixin aan ku gorfeey doono caqabadaha ay la kulmaan naafada. naafadu waxay u kala baxdaa saddex qaybood oo ay shacabku ugu yeeraan dhoolka, dhagoolka iyo curyaanka. laakiin macnaha marka la yiraahdo waa qof arag la, dhagaha la iyo kuwa lugaha la. markaan dul istaagno dadka aragga la ayaan helin xuquuq asaasi ah oo ay ka mid tahay waxbarasho free ah, caafimaad, shaqooyin. ka aragga la agabyada ay wax ku bartaan ayaan laga helin dalkeena Soomaaliya. ma jirto ganacsato u soo iib keenta agabka ay wax ku bartaan dadka aragga la. Muqdisho waxaa ka aasaasan iskuulo dadka aragga la wax lagu baro, kuwaas oo ka kooban iskuulada dugsiga hoose dhexe. qofka aragga la sare wuxuu ku dhiganayaa iskuulo kale. caqabada koowaad ayaa waxay ka qabsanaysaa kadhaadhicinta maamulka iyo macallimiinta qofkan aragga la inuu wax baran karo. ardayga marka uu dhameeyo dugsiga sare waxa uu tilaabayaa jaamacad. marka uu dhameeyo jaamacad waxa uu soo xirmaya socdaalkii dheeraa. barnaamijka wacyigelinta bulshada iyo golaha barbaarta aragga la. boqolaal kun oo sano dhalintii basaasnee ayuu soo bandhigayaa kabax bogto badan iyo baahi badan bulshadeena diidayay. horta maxaan ka baranaa? barashada aqoontan baal weyn ka jooga, balse waxaan la ooyaa boorarka shaqada layguma soo bilaabo, waa layla baalmari. badbaado allah. saaxiib maxaad ka baratay? calashaan bulshada idinma oga. bartaa ha u dhaafin. waa bayaanka naafada, fariin baaxad weyno qalbiyadeena ku beeran ayuu soo bandhigayaa. waxa uu bartay ayaa baakadkii shahaadada ahaa waxay noqonaysaa in guriga la iska dhigo maadaama uu heli karin qofka aragga la shaqooyin. balse bulshada Soomaaliyeed ayaa dadka aragga la waxay kala kulmaan caqabado kala duwan. caqabadahaas oo ah marka uu qofka raacayo gaariga in darawalkii uu dhaho waxaa tahay qof indhool ah, kuma saari kara gaariga waayo markaa dhow meesha aad degtid yaa ku wadayo, mas-uuliyadaasi ma saarno ee walaal kuma qaadi karaysoy. soo lagama rabo shacabka saaran gaariga inay arrintaas ka dhiidhiyaan kuwa ku baraarugsan in qofka aragga la uu yahay qof soco kara. markii laga hadlo wadamada caalamka ayaa siiyo dadka aragga la xuquuq u gaar ah maadaama uu yahay dalkeena dal burbursan. haddana ma jirto bulshada Soomaaliyeed cid tababar u siiso ama ha noqoto hay-ad ama dowlad. waxaa jirto in dowladdu ay magacawday dad magacyeel ah kuwaasoo kala agaasimaha madaxtooyada, agaasimaha gobolka Banaadir iyo guddiga naafada. ma ahan kuwa dhaqdhaqaaqa. dadka qaar ayaa ku micneeyay dadkan magacyeelka ah inay tahay mashruuc lagu soo qaatay wadamada qaar. qofka aragga la waxa uu la mid yahay qofka xaqliya ka maqan ay tahay aragga. aniga kula hadlay waxaan ka mid ahay dadka baahiyaha gaarka qabo, gaar ahaan dadka aragga la. waxaan isticmaalaa baraha bulshada oo aan hadda nigala hadlayo youtube-kayga. youtube-kan waxaan ku madadaaliyaa dadyo igu taxan oo u diyaarsan inay i daawadaan. inkastoo damihin indhuhu dunidii araggii ku waayay, hanyari i daciifi maysee, dadaalyari u gaabi maayee, qalbiga eebbe iigu deeqaa, darajiil lib ku goobaya ee dadkii laga beerow ila duubto maanto oo dacalkayga joogo. dalbile 32 subscribe sar, like iyo share iigu deeqa. sanadii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo badanaya dadka aragga la inay isticmaalaan kombiyuutarka ayadoo hore u jirtay inay isticmaalaan iPhone-ada ayaa ka saacidaya cod la yiraahdo voice over. hase ahaatee waxaa u dheeraada kombiyuutarka kaas oo u dhigo macallin oo aan joogin dalka Soomaaliya kuna dhigo aalada fogaan aragga asigoo aan ka qaadin wax qarashaad ah. adigu haddii arki lahayd qof arag la isticmaalaya kombiyuutar iPhone maxaad aamini lahayd? bulshooy aan ila dardaarmee dadku naafadu yaa la liidine, dhiirigeliyo, dhinac istaago, dhibta la qaybsada. waa hagaag daawadayaal, warbixintii aad ku qurux badneed oo aad daawateen naafadu maxay ka aaminsan tahay Soomaalidu. warbixintan Soomaalida waxaa rajeey doonaa inay gaarsii doonaan dadyo badan oo like dhihi doonaan, share garay doonaan. dhammaan asxaabta waxaan leenahay TikTok-gana, YouTube-kana ku xiran dhammaan waxaan leenahay share gareeya. dhammaantiin waxaan iga tagay sidaas iyo amaano Allah.